السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذي السلام يا دمان فاميل فرحي سومال أوفيشيال آدي السلام يا إن وحبضنا كلام مخنين مح إذا مخناي إن حمان كلام جيرين ودب كلام جيرين إن وح إقبصدي وكلام لهن وأن كأهين جدية وجري إن مركي هركو سفر وجري سفر كيجي والله مر أن ما عرفتي أن اسكت ضيه لكن هذا يصير تجلواسي إن أنا بحرب تركي قاعده نصيب وحول بالله سبحانه وتعالى تيسمع له وتعالى أدينا بني آدنا تهوات تباحي سا وحذاقي سا إن إلهين وتشتاء إله سبحانه وتعالى إن موسى يقول تلقلين إن بحا صفر كاس هذا إن لكن وحن يستي أن قراو صدي إن أنيجا شرعي هاد ببحتانك أو جوجستانك غير إياها waxaa la yiri wax ilaahay wuxuu dhahay wax adiga qeyr u aragtid oo shar ku ahaa jiro wax shar u aragto qeyr ku ahaa jiro laba mar hadaa ku guul dareystay oo rejecti la soo siiyay turkiga ma salaama isdhahnay laakiin wadankayga iska jeclaystay inaan iska dago oo nolosheedii ma aragtay aan halkan ka sii wato magaaladeedii aan ku dhashay Soomaaliya waxa rabaa marka guriga soo degay geedii ugu jiray alaabta marka soo gaday waa raba inaan idii soo geliyo laakiin way suurtagal waasay oo xogaa meeshan ka soo gaday duubista iyo dadka saxmadooda iyo ma aragtay waa isku keen way suurtagal waasay hadda laakiin wiilishi alaabta ii dijinay xitaa kaamiradu way diideen laakiin qofka dadka bini'aadamka ma aragtay ma la qasbo bas laakiin hadda alaabta inta ay soo dhigeen waxaan nasiib xumo guriga aan soo degay horta dabaqyada hadda sanadka la dhisooyo albaabiyada yar yar laga dhigay apartment-ya aan soo degay fadhiga waa kana u jeedaan qaybtaas shaqo kuma leeyahay qaybtana shaqo kuma leeyahay ana qaybtana deganahay qaybtana laba apartment si kala ah marka apartment-kayga waa kaasa gurigayga ane fadhiga kala waa kana soo inta u yaalaa wad arkiisaan kan kalena banaankaas la dhigay way gali waayeen nimankii waxay dhaheen anaga gelimo karno wayna baxeen guriga aan soo degina waa kana nala socdo maaragtay xagaas waa albaabkaas waa ana toos idii tusaa marka la idii soo gelin doona halkaas waa waxa waaye ishak jikadi halkaas noqolkeega jiifka waaye oo master roomka intan waxa waaye waa musqul kaleento fadhigina halkaana u rabaa alaabihiis waa kana waa diyaarsan yihiin roomkii wax dhan waa kana waa diyaarsan yihiin barkimankii waa kuwana oo fadhiga laakiin nasiib xumo waxaa la sameyn laayahay fadhiga la soo gelin laayahay koode qasaaro waay ya waa in fadhiga la soo furfuraa oo kadib inta la soo geliya lagu xiraa marka waa kaaya insha Allah nala socdo wixii kaleento oo fadhiga markii waa video ku soo dul qaban doona videogan fadhiga markii la soo geliyo insha Allah isa u degay soo quruxda oo ku soo baxa ana idin soo socodsiin doono igana raali noqdo barnaamijyo fiican ay idin soo wada wax badan isbedel badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala isbedel qeyr qabaala nooga dhigo nala socdo insha Allah marka guriga la sharaxan waa idin soo gelin doona insha Allah hadda marka iga raali noqdo inta idiga maqnaay wax badan kala maqnaay waad ogtihiin wax kale idiga ma maqneen idinka idii maqanahay waxaan rabaa meel qurux badan inaa idii fariisto gabar qurux badan iyo meel qurux badan iyo barnaamij qurux badan ayaa idin la rabaa insha Allah nala socdo assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh bayn waa la soo geli kuraasto dib badan laga maray la soo furfuray haddana inta la keenay lagu xirxiray oo soo fiirsateenba waa kana ma sha Allah hadda waa dhignay waxa inoo dhiman maxaa la roomkii waa kaas xagoo yaalay cagasaarkii wali waxbaa dhimay sharaxaada u dhiman guriga markii la sharaxo oo xoogaa ma aragtay oo adduunka dhan la kala waa idii soo gelinaya kaasne laakiin hadda waxa ogaataan dadkii laga beero guriga wuxuu ku soo baxay si innaba aan caadi ahayn ku dhahay waa kana marka waxa inoo dhiman sheek ma aragtay sharaxaadkii guriga sidaan ku soo baxay dibka laga soo maray laakiin dadka dabaqyada dhisana waxa idin leeyahay ya albaabiyada iska weynee ilma adeerayaal oo naga daaya ciyaartay waxa waaye
خسارة أنا قلينيني يا هذا مركي جورين هذا فرفر هذا اللي متكل حر حرو يفرفروا لما كجورينا البابي الألوينيو سيقصوا قشة محل لها أي شيء عادي يقصوا قلا الباب كوين يا مركا واكايا إن شاء الله نلا الصعبة waxaa u dhiman meeshan waxba ka dhiman oo jeedan saa inta waxa ka dhiman roomkii horta waa kaaya waa mid u eg waa kana lama dhigin wali laakiin toosa marka ayaa soo baxa fiiri fadhigaas iyo sigaas kala iskugu talagalay ayaa way soo saaraya dahmanka iyane fadhigan dheerkane way isleeyihiin yaa fadhigaas labada xabba yar iyo umuteelkan oo isleeyahay ruuxi dhan waa iska yaa ma sha Allah hadana roomkan hadda ma la saarayo marka guriga oo sharaxaadka dhana u dhiman waxa ka dhiman halkan dhaladiya ka dhiman dhaladiya lagu xiraaya halkan waa kaya marka insha Allah ta'ala nala socdo wixii akhbaar ani hadda كاميرا مسكين دوسامسه دالده هلا igu muuqday akhay arkin anino waxa idii soo friisanaya ma fahantay oo laba biri ay idin nastano laba biri ay idin nasana wajigeyga u xiisteen waa ogahay anna waan idii xiisay dadkii layga beero oo dhag fadhigisaan oo ku soo baxay maxaa la dhahaa waxa idii soo sameynaya marka waad arkaysin in badan fadhiga marka la qurxiyo la sharaxa inta waxa ka dhiman darbiyada alaabi lagu xiraay halkaas waxa ka dhiman ubaxa ka dhiman halkaas ubax dheer la soo gelinaya halkan ubaxa ka dhiman ya war markii la soo sharaxa idinka arki doontiin ya marka waxa waaye aan ku fariistaba oo marka waa idii jeclay dadkii laga beero waxaan ismoognahay in badan waad ii xiisteen waan ogahay guriga aan soo degi waa kana alaabahan wiligeedka waa ku xiran yahay iga daacayaas waa lagu fufujaadu waxa iga hayhay meesha hay faqriya Allahu akbar maqs inuu gooy leeyahay maqs ii sheega kana wallahi laba daaqado leeyahay laba kubtiino leeyahay labada dhinac kale labada dhinac baa laga xiray iya abo waa furfura leh wallahi waxay sheegaan igu dhagniga marka ma sha Allah dadkii laga beero insha Allah nala socdo kulay kuraasti wili waa idii tusaya shalay qaabka lagu soo geli waa la soo furfuray dhibaato dheer kadib marka alaabtan la sharxo adduunkan dhan la waxeeyo baan haddana isla soconaynaa waan idii soo gelinayaa qolka jiifka ciyaalka sida loo sharaxay sida loo qurux badaniyo wax dhan insha Allah nala socdo waxaan idiga sii tagay sidaas iyo nabad geliyo waxaan idiga maqnaayne waxyaalo cusub waji cusub sheekooyin cusub wax badan oo maaragtay idii xiisa geliyo aad idii jeclahay dadkii laga beeray aad iyo aad idii jeclahay farxadan iyo noloshan ilaahay ka soo dadkii maaragtay igu garab istaago ka dambeeyay idinka waaye ma fahanti ilaahay idii sharfo idii jeclahay Soomaali Maxamed dadkaygi I love you assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh